Asalaamu calaykum saxaabteeda qaaliga ah aad baan idiin salaamaya dhammaantiin meel kastoo joogtaan maanta insha allah waxaan la wadaagi doonaa saankeegan u sameeyey gurigaana ku sameeyey maasha allah wax fududna waa ka sameeyey maasha allah waa la socon doontaa insha allah halkan waxaan kusoo diyaarsaday alaabtii aan u baahnaa inaan keega ku isticmaalo oo ama aan hareeraha kaga sharaxo ama dhexdiisa mariyo sida kareemka oo kale lagu daray waxaas oo dhan ayaan halkan kusoo wada diyaarsaday waa kaas keega dhexdiisa waa soo hagaajiyey dushiisiba waxay noo harsan sidii aan u sharaxi lahayn insha allah waxaan u baahan lahay fraiskaas iyo shokolaadkaas oo soo jarjaray iyo maaragta bahalkan kale iyo haaloonta waa kaas maasha allah uma baahnid mar walba inaad gurigaaga dibadda kasoo iibsatid gurigaaga dhexdiisa waad ku sameysan kartaa easy mid kaaga jaban kaaga tayo fiican gacantaadaad ku samaysatay aada og tahay inaad adigu samaysatay oo aanay wax xaaraani ku jirin maasha allah marka asxaabey waxaa kuri economiga hala eego guryaha dhexdiisa lagu sameeyo ala tijaabiyo ayna odhan lahaa in laga sameeyo insha allah maasha allah kule aan waxaan jeclay inaan anigu tijaabsado ama gacantayda ku sameysto saa darteedna waan isugu dayay waana keenay markii hore ma aqoonin waa barteen ma fahanteen marka kuley ma la oran kara inaan xariifad ahay laakiin maasha allah dadkayga waa ku dhex jira waa iska sameysan karaa mid anida igu filan ma fahante waa au ekeysiye wax yar inuu aan soo iibsado kale maasha allah asxaabtayda qaaliga waa kaas saad rabtaad u dhigdhigan kartaa hadaad rabto isku soo dhaweyn kartaa hadaad rabto waad kala fogeyn kartaa maasha allah meelahaasna waxaan ugu talagalay in aan ku buuxbuuxiyo kareemka waayo waxaan uga dhigay 4 gees kala jeeda si aan ugu soo baxo si qurux badan oo meelana aan ka helo oo aan wax dhigdhigi kara kale marka waa ka asxaabey choklaadka hadaad rabto dushaad kaga darsan kartaa laakiin ani waxaan u reebtay inaan xareeraha u isticmaalo waayo kaga qurux badnaanaya xareeraha markaad u isticmaaleyso si qurux badan buu kusoo baxaya dusha sidoo kale haddii aad ku darsato si yar qurux badan ku darsato maasha allah kasoo bixi karaa waa ka asxaabey waa soo dhameynay saasoo kusoo baxay maasha allah asxaabey tijaabiya insha allah dadka heshaan wax rajeynayna idinkuna guryihiina ku tijaabsataan oo ila soo wadaagtaan insha allah saa u samaystaan saan insha allah aniguna iniga faa-iido daba inaan sidan wax isugu dhacna aan isu barno insha allah idinkuna ila soo wadaaga waxaa ku fiican tihiin anigu ma fiicni laakiin waa bartay intaa yar baa bartay intiina waa jeclaysan in la soo wadaago waxaan rajeynaya idinkuna sidoo kale daawasho waxaan aad bani salaamay asxaabtayda qaaliga